midka ugu sareeya buu ahaa wuxuu yiri qudban buu ahaa zabaanka asagu u joogo wuxuu ku magacaabay Nawawi markuu ka hadlayay inuu qudbi yahay saas ku tilmaamay Sheikhul Baghdad uu yahay Sheikhul Baghdad inuu yahay inuu qudbi yahay Muhyiddin inuu yahay diinta midkii nooleynayay ilaa Muhyiddin dadku waxay dhahaan Muhyiddin ba iska dhahan marka waa ismu faacil Muhyiddin waa kii diinta nooleynaya Muhyiddin hadii la dhaho hadii marka waxa ka noqon moogtahay xogaa ismi carabiyadu waa ka khaldamaysa moogtahay Muhyiddin waa kii diinta nooleynaya waxa weeye marka hadana qudbi buu ku tilmaamay qudbigana horay maxaanu oru sheegnay inuu niri qudbi waxa la yiraahdaa baanu niri waa afdalul awliyaa fi zabanihi ba qudbi la yiraahdaa awliyada zamanka joogta midka ugu fadli badan ka ayaa qudbi la yahay soo horay saa uma sheegin marka waxay yiraahdaan markay ka hadlayaan lam yakun fi zabanihi mithluhu Sheikh Abdul Qadir Jilani zamanka asaga u joogo wax la mid ah ma jirin ba sida kal Mustafa Nabi Muhammad sidoo nabi la mid ah uusan u jirin oo Nabi Muhammad nabi la simi kara uusan u jirin iyo ahad la siman ba Sheikh Abdul Qadir Jilani wali la simi kara uusan jirin oo yahay macnaha afdalul awliyaa قطب الأولياء وياهي قوت الزبانه وياهي شيخ عبد القادر جيلاني مركز سدا صوها waxa sida uga hadlay taariikhan uga hadlayo waa Imaam Nawawi hadee wuxuu leeyahay wanta raasul ilmi ilmigina asagu ku dhamaadayba Imaam Nawawi waa sida leh ya hadaad moodaysa Sheikh Abdul Qadir Jilani wadaaduna hamra ay wadataan oo habra u fooxiyaan Imaam Nawawi hadee wuxuu la ognahay inta hadda Sheikh Abdul Qadir Jilani jecel iyo inta sheekha inkirsan Imaam Nawawi way wada wataan laabta ku wadataan Sahih Muslim kee laabta ku wataan kitaabkii manhajka hadda waa u soo laabteen bariga hore waa diidi jireen waxay wax ku kala xukumaan baa waayeen markaan waa ku rafaadsan jilbaha ku marxay safiinaha ka soo bilaabeen hadii ilaahay waxa weeye riyaadu saalixiinki waa kula wataan Imaam Nawawi marka cid inkirsan miyaa jirta waxa sida u amaanayo waa Imaam Nawawi oo leeyahay wada raasul ilmi Sheikh Abdul Qadir Jilani raasul ilmi baa ku dhamaaday waxa baad ku garanaysaa raasul ilmiga inuu ku dhamaaday zamanku sheekhu asagu joogay ayaa culimada fuqahada ahayd baa waxa la weydiiyay mas'ala cilmi ah fatahayaru way ku wareereen ninba wuxuu ku dhaarto islaantiisa uu ku yiri cibaado ahad iga horeeya aniga cibaado ahad iga horeeya usan la imaanin hadaan la imaan way waad iga furantahay islaantiisa ku yiri ya cibaado iska qaylin cibaado ahad aniga iga horeeya usan la imaanin hadaan la imaan weydo waad iga furantahay buu yiri islaantiisa ku yiri dadkii fuqahada ahaa loo laabtay zamanka joogay nin walba wuxuu yiri way ka furantahay islaanta maxay cibaado aan la imaan malay salaad waa la tukaday soon hadii la oran lahaa waa la soomay حج هدي لحجنا ولا حجي أما وين كافر أنت بوحكة لكم ما أرجنا أذو مركز مسألة دي وحلا ويدية شيخ عبد القادر جيلاني بالويدية ولا يدي مسألة أصلا نكون دارت شيخ عبد القادر جيلاني وبالكور رمى شيخ عبد القادر جيلاني وحي إنك أنت تصوك حيسان كلي كعبة حتى وافي ودتك كله هلا عليو هذا وعبادة أحد كور ريا وصل الله إيمان ولي الله ما رح هالقرف وكلي كعبة طوافي إلا كعبة موقت الجماعة اللي طوافه كلي كعبة هذا وافع عبادة الله يماضي إسلامتي إلا شرط يهض الله يماضي بس وهي إسلامتي باقي بين نقون يسمى وقتها عبادة أنا أحد يحريه وصل الله إيمان هدول الله إيمان مسألة مركب واحد فري شيخ عبد القادر جيلاني أيها فري زمن كيسة وحقوقش كل جيان أم الله مسألة كتاب كي عانها باللويسة حاشية ده أيها قوقش كل جي ترى مالها باللو كتابك بنبري هذا كون برا إيمان لمبرسنا لكن واحد حصصتا كتاب قوقش يسألون أي علماء أي كقبن ترين مركي أي كهالليان مركي هذا شيخنا شيخ عبد القادر جيلاني ساس وحو يهي انتهى الرأس العلمي اللي هو كشيخ اللفتي سوحها درست العلم حتى صرت قطبا علمي جبان دراسية إلى أن قطبك النقض قوت الزبان هذا نكي قوت الزبان نوربه وإنه علمي قبرته وضدك أصيبره مركز وحو النقونا يا قوت الزبان النقونا يا تاوحا وقاها الإمام نولان كقدمني وحا كمد علماء كهذا الشيء شيخ عبد القادر جيلاني تاريخ ديسا إمام ذهبي أيا كمد القصيدة من دحق لنا إمام ذهبي أيها كم ذا علماء كهذا الشيء أحير شيخة بأنه أماننا شيخة لكن حرام يدين راعية وأيه إمام ذهبي أيها كم ذا ونسكسه قبل جوين يا مركان با حلقة أبو وركة إنه بطي إمام ذهبي بقى كم ذا إمام ذهبي ما قرنا إنسان إمام ذهبي قلنا حتى وهابية ده بيوتشعليهن وحلا شيخ وحلا يرى هذا لو يقنا وقضح علماء بدن انت بدن واضرا وحير ما كتاب العلل بسكليه علم الرجال كو مغديريي حتى waxay qaar kood sheegan mashaayikhdii waxa kamid ibn taymiya kamida ibn taymiya wahabiyada u yaqaan sheekh islam u yaqaanaan annagu sheekh fitan baan u naqaanaay sheekh fitmadan u naqaanaay fitma asaga ka horeysana ma jirtee waxa weeye diinta islaamka dhibaato ninka uu keenay khilaafkan keenay afartan mas'ala ninka culimada ku khilaafo ijmaaca weeye marka laakiin waxay leeyihiin imaam dahabi waa aad buu wanaagsan yahay isku zaman isku aqraan bay ahaayeen
ابن تيمية شيخ وما هين لكن صاحب هاينا اسكو زبن نوا هايين هذو على كل حال تفسير كيسنا وحو بدنا هذا معناها تفسير كسلف كأيو بدنا والله أعلم بمراده بكجد بجرى آيات كصفات كي حديثة معناها هذو سلاس بدنا الرحمن على العرش استوى وحكم رجري تفسير كسلف كم رجري صانق إمام ذهبي محكيري إمام ذهبي شيخ عبد القادر جيلاني مركو كشي كين مدهد سو ذي كتاب كيس تاريخ سمركو قال لي وحو يري إمام كان لو يقانو شيخ لو يقانو أبي بكر العمادي شيخ اللي يراهدو وحا سو قادنا إمام ذهبي أيا سو قادنا شيخ وحو يري وحن دراسي علم لو يقان علم الكلام علم الكلام وعلم المنطقة علم المنطقة وعلم العقل حق عقيدتنا أصيغ اللي قلت ساموكت العالم متغير وكل متغير حادث قال لي هذا مركز ديساتو محاكوسة بحي النتيجة دي العالم حادث بعد مركز كان نتيجين يسا إلا العلم كان علم عقيدة ده وعلوم العقل أو حق عقل قال لقول سا أدلة القرآن كان هبوته لكن وحي روحان آدو الدراسية علم الكلام كعلم المنطقة وحاورانا الشيخ أبي بكر العمادي أي أورانا ما مذهبي ووركي سوق قاضية مركزها وحي عقيدة دميت بابا شكي قليل شكي بابا يقول عيب إلهي وجود كيسيو الله شكي بابا كل عيب إلا علم وقت علم المنطقة هذا كسي حل إيراته حلقة ما يرد إنه كاتورو شكي بابا يقول عيب مركزها وحن سيريبو يري على إلهي بل شيخ عبد القادر جيلاني انت أتكته وكيل لها وأوليه بل أكبر يسو وحن قلبي كتير شكي بالعقيدة إنه كهلا إسكا أكبر يسو شونا هاودين وانصاك عيب شيخ عبد القادر جيلاني وعلم بحين هيو يمد وحي مركو رددك وعدينيو ساعة نصو فريستي جيس كان نصو فريستي بوحو يري انتو كبحي موضوع كهلي اعتقاد السلف الصالح والصحابة بيقولوا شيخ عبد القادر جيلاني أنك عقيدة أنذو وعقيدة ضدك هري وناكسنا هي صحابة النبي محمد سداس عقيدة نو أبو شيخ عبد القادر جيلاني وحان اسريبه أبو بكر باورانيا وحان اسريبه يري وموافقة القدر ومرها الشيخ وعدي قودي با meesha ka galaya adiga kuuba jeede bal hadana shib u dheh markaasoo mar labaad wuxuu yiri intuu saa isoo fiiriye i'tiqaaduna asaga xaqiisu fiiriye i'tiqaadu salaf salih wa sahaba markaasa waxaan siriboodi qal yaltafatul waacidu ninka waacidka marna xaq u dhowraa marna xaq u dhowraayo way iska waacido ishiisa kugu dhacday baan siriboodi markaasa hadana mar saddexaad wuxuu yiri i'tiqaadu salaf salih wa sahaba ya Abu Bakr buu yiri أبو بكر وحن أنتم مجلس كنا واقعي عقيدة أنه واصلاص وعقيدة السلف الصالح وهي ماها عقيدة أنه فلاسفة علم المنطق وحنا تكون رئيس عقيدة الله مرضها وقد جاء أبوك قم أباها نواي من استاج بجربه أبيه أصلا سفر كم قناه شو جرجي يمد وعلم الغيب وجو الرمية أباها نجرجي بقوضة مرة ما شكك عورض أباها سود ويجري مركزها وحجري فقمت مبادرا أنا الدقدقة هي كعيو كمان قعدت قوقاتها دلائر قحسنه أيها وحين فإذا أبي قد جاء إسلام مركا أباهي باب الباب كتاجن بي وطبت شيخ أو شيء من كراماتي بكم تاي شيخ إنه كهلا خوادر كيسة يوحى قلبي وكسر قبصدي إيا مجيء أبيه إنه كهلا وحكم تاي كرامات كشيخ عبد القادر جيلاني قصة أنا وحدقة يا كتاب كلا سير على أعلام النبلاء إمام ذهبي أسكري هاي أي عدقة هي هداد مركا أي مودين ضدكو شيخ عبد القادر جيلاني وح ما لها لقى كان أيه وح إسلامها إفاحة وشتين هدين مودين بل مركا تاهل اوغادو تاريخ الاسلام ككتابته هو وين بو كميد كتاب كاس سير اعلام النبلاء ابن كثير ككتاب اسكلا البدايه والنهايه كتبته هو وين بكميدين وحا كميدو اسلا كتاب كان كو ياله شيخ عبد القادر جيلاني كرامات كان كميد تاريخ انا قادنينا شيخ اللي يراهد مغعيسه ابو البقاء النحوي شيخ اللي يراهدو ابو البقاء النحوي شيخاس ايا اسغنا وحو يري مال المالمها كميده wuxuu yimid meel Sheikh Abdul Qadir Jilani iyo xirtiisa ay joogan meesha Quraan baa la akhrinayaa quraankiina wuxuu yimid cod qurux badan bismillaahir rahmaanir rahiim حميم قرآن كله إسلام جبينه أو ده عد كلا الله قرحناه سينا وانين فقيه موقته فقهاءنا مروا البيار عليك بكجروه مركز والودادهم حيث لا جبينه يا معايا القرآن كآخريانه محي الله عد كأين ضوء يا محمود يصير مركز أنت أسوق قلبي إسكيري مدك على شيخ اللفتي شيخ عبد القادر الجيلاني وأولي إلهي إن ما كان هذا كوهية محكدة جيسنا يا مو إنكره أرنتها كو إنكره يصير مركز وح الله يبو شيخ عبد القادر الجيلاني وحيري يجيء الواحد قد قرأ أبوابا من الفقه ينكره وحال لغا يابا
hal mid ah oo wuxuu yahay abwaab fiqiga ka mid ah dhowr baab fiqiga intuu soo akhristay yaa aday ku jiro intuu meelaha soo fadhiisto yunkiru haddana inuuna inkiro baa laga yaabaa yuu yidhi qur-aankan haddee in la hagaajiyo waxaa dhahay zayanu lqur'aana biaswaatikum rasuulkaa yidhi qur-aanka sawdkiinna ku qurxiya oo qur'aanka alxaan wanaagsan ha lagu akhriyo nabigaa yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa allahu akbar markaasaa waxaan isidhi buu yidhi intaa markuu yidhi waxaan isidhi buu yidhi adiga kuuma jeede waxaa laga yaabaa qof kale inuu u jeedo markaasaa wuxuu yidhi acni bilqawlika ya abulbaqa annaxwiy hadalkaadaan kula jeedaa buu yidhi markuu yidhi hadalka adaan kula jeedaa baan wuxuu yidhi fatubtu ila allahi siran si hoose baan marka ilaahay ugu toobad keenayo caqiide xumadii aan sheekha u qabay iyo ictiraadka aan sheekha bushinayay baan ka laabtay ilaahay baan u toobad keenayo macnaha aniga qalbigaygii baan niyadayda hagaajiyo sheekhi baan hadda caqiide wanaagsan u qaaday markaasaa wuxuu yidhi saa intuu u dhowray waqad qabila allahu toobataka toobadayna ilaahay waa kaa aqbalay buu yidhi orod soco ya toobadii aad toobad keentayna ilaahay waa kaa aqbalay buu yidhi waxay ka mid tahay haddee sheekha khawaadirta uu la socdo sidoo kale sheekha la yidhaahdo marka sheekh cumar sheekha la yidhaahdo shihaabudiin ay tahay kunyadii sheekha la shihaabudiin laqabkiisa uu yahay laqabku waxaa la odhan jiray ma ashcara bimadxin aw damin waa laqab wixii ama ammaan dareysiya ama cay dareysiya marka haddii shihaabudiin la yidhaahdo ammaan bay marka noqonaysaa marka sheekha laqabkiisa shihaabudiin uu yahay asahriyi ee haddana suufiga ee zaahidka ah sheekh cumar la yidhahdo magaciisa sheekhaasaa wuxuu yidhi waxaan damcay buu yidhi sheekha inaan kala mushawaroodo waxaan damcay tacliimta cilmigan cilmulkalaamka cilmumantiqa inaan akhristo baan damcay buu yidhi markaasaa waxaan isidhi buu yidhi bal marka hore sheekh cabdilqaadir jinaani la soo tasho markaasaan sheekh baan u imid buu yidhi qabla kalaami wuxuu yidhi buu yidhi laysa min cuddati alqabri yaa cumar wuxuu yidhi sheekh cumarow cilmulmantiq waxyaalaha qabriga loo diyaarsaday qabriga lagaga badbaado qabrulcadaabka lagaga badbaado ka mid ma aha buu yidhi intaana laba hadlin sheekh ya damxuma ku hadlay wixii uu ku hadli lahaaba sheekhi baa horey dhimay wuxuu yidhi buu yidhi laysa min cuddati alqabr yaa cumar cumarow ka mid ma aha cilmiga cilmulkalaamka ama cilmulmantiqad raadinayso waxyaalaha qabriga loo diyaarsaday qabrulcadaabka looga badbaado ka mid ma aha wax aakhara ku anfacaya ma aha ee cilmiga aakhara ku anfacayo cilmiga raadso ama cilmulfiqigii iyo xadiidkii iyo tafsiirkii cilmiga aakhara ku anfacayo wax kuu tarayo ee qabriga wehel kugu noqonayo kaa raadso insha allahu waxa weeye wixii inaga dhiman culimmada ayaa inoo dhammaystiraysa waintahaa kalaami hadalkayga intan ayuu ku intihoonayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu